Assalaamu calaykum waa Dr. Mawlid Kudar dhammaantiin bidi salaamaya. Maanta waxaan ka hadlaynaa maaragtay xanuunkan la yidhaahdo herpes labialis ama cold sore la dhaho ama fever blister adigu hadba waa sidii kugu soo gaadho, laakiin Soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa weeyaan caara ay ku kaadiday. Marka waxaan ka sheekeynaa markaa ma caara kugu kaadiday mise waa xanuun. Sidaad arkaysaan waxa weeyaan xanuunkan waa xanuun jira waxaana keenaya maaha maaragtay caaro dee waa sidii hore oran jirnay weeyaane, laakiin maaragtay mar haddaan ka daba tegay laakiin aad ka daba geeye waxa weeyaan calaa kulli xaal si kasta soo naqaaniba hadda waxay ka dhiganta waxa weeyaan dhanka caafimaadka marka la eego waxa keenaya waxa la yidhaahdo herpes simplex viruskaasaa keena marka herpeska gaar ahaan kan la yidhaahdo ka koowaad baa keena kan dhankan dibnahan afka ku dhaca. Waxaa jira mid kale oo la yidhaahdo herpes simplex virus 2 kaas isagu wuxuu keenaa xubnaha taranka ku dhaca waxyaabaha ku dhaca buu keenay kasoo baxa ka rag iyo dumarkaba. Xaggaas buu ka labaad badanaa keenaa walow labadooda hadday qof ku faafaan ay keeni karaan oo la isqaadsiin karo. Marka waa taas waxyaabaha keenaya. Dhankaas waxyaabaha kale keeni karaya waxaa ka mid ah keliya maaha simplex viruskan waxa weeyaan waxyaabo badan oo kale keeni kara. Waxaa keeni kara waayahan difaaca jirka ku jirnay taasna markaa kan soo qaatay haddii difaaca jirka qofku hoos u dhaco xanuunkana way keeni karaysaa marka oo dee ha ahaato si caadi ah qofka xanuunka difaaciisa jirka hoos ugu dhacay ama xanuuno kale waaweyn oo hadday kuwa difaaca hoos u dhiga hadday noqoto markaas marka waa taas way keeni karaysaa. Sidoo kale waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah dee stresska kale qofka markuu dhaco waa stressku sidiisa wuxuu keenaa isaguna difaaca jirka hoos u dhaca hormoonada la soo daayo cortisol ka mid ah waxay sameeyaan difaaca jirka hoos u dhigaya. Sidoo kale haddaad qaadanayso hormoono kamida maaragtay ay kuwaas ku jiraan ka sheekeynayno difaaca jirka hoos u dhigi karo oo dhan ama dawooyin kaleba haddaad qaadanayso iyagana sidoo kale way kugu keeni karayaan. Marka taasina waa taas. Dhanka kale sida loo fudin karo maaragtay qofku waxa qof kale uga qaadi karaya waxa weeyaan taabasho kale qof qaba hadda dhunkato kale ama si uu gacantiisa ugu taabto afkiisa adigana afkaaga u taabto way ku soo gaari karaysaa saa u fudi karaa. Qofna siisa kale jirkiisa kale ku faafin karaa hadda lafteeda indhaha kale maaragtay waxaan xagga indhaha buu qofku sii qaadsin karaa ama diirka jirkiisa qaybaha kale waa u sii gudbin karaa marka taas kuwaasina waa gudbinta waxyaabaha uu leeyahay dee calaamadihiisa waxba ka sheekeynayno waa wada garanaynaa dee wada garanaysaa baashaas ciidaan kulli kasoo bixinin baasha dibinta maaragtay dee la yidhaahdo qof markuu soo kaco kale uu yidhaahdo la soo kaco yidhaahdo cali bay igu kaadiday haro dee waad garanaysaa waxa weeyaan waa soo baxa yar finan yar burburan isu tago kale weeyaan sidoo kalena keeni kara hadda qof markuu taabto xanuun bay keenaan dee qof uu dareemaya xanuunka uu keenaya. Laakiin way iska tagtaa waqti ka bacdi waad garanaysaa qof badanaa dawo looma adeegsado waxa way si yar sahlan bay isaga tegaysaa. Markaas waa taas oo qolof marka dambe ku samaysta qoloftaasna qof ka dhacdaa saas marka dambe caadi u soo laabanaya. Laakiin waxaa lagu daweyn karaa waxa weeye dawooyinka dawada qofku u baahdo markiiba si uu dhaqso uga bogsado waxa weeyaan dawooyinka loo isticmaalo antiviral drugs dawooyinka la daweeyo viruska ayaa la siinaya sida dawada halkaan soo dhigay la yidhaahdo aciclovir oo kale baa ka mid marka way badan noocyo badan oo kale ayaa jiri kara sidoo kale waxaa jiri kara iyadoo dhiiqa baa jiri karta tan waa afka laga qaadan kara. Marka waa taas intaasaan kusoo koobaynaa haddii aad maaragtay ka faa'iidaysatay casharkan la sii wadaag sidoo kalena like-ta taabo si ay usii gaadho youtube-ku wuxuu gaadhsiiyaa dadka wuxuu ku gaadhsiiyaa like-ta lafteedu way keentaa inay dad badan usii tusi karo marka oo u baahan wax ka ogaadaan waxyaabaha waxa keenaya. Markaasaan kusoo koobaynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum.